marka maadaama qalbiga bini aadamku uu ku yaalo wadnuhu uu ku yaalo halka laabtaas halka feedhaha bidixoostooda xaw ummuna xawaa waxaa laga abuuray halkii qalbiga u dhoweyd baa laga abuuray halka maxaa laga fahmayaa in labadan qof ilaahay jalla wacala uu isku baahiyey oo aynan kala maarmayn iyo haweenaydu halka nolosha ay ugu jirta baa layna tusinayaa meesha laga abuuray maka waa qibladii caalamka ee dhinac walba lagaga soo tukanayay meesha buqcadda khayrka badan leh ee ilaahay uu yidhi inna awala baytan wudica linnaasi lalladii bibakka mubaarakan wahudan lilcaalamiin la yidhi ciddii u horreysay meeshaa sees looga dhigay haweeney bay ahayd ummuna haajara zawjatu ibraahim calayhi الsalaam wa ummu ismaaciil calayhi الsalaam nebi ibraahim laba xaas buu labadiisii xaas ee qur-aanku sheegay saare iyo haajara haajaruu ka soo qaaday falastiin quds jibriil baa weliba nebi ibraahim soo kaxeeyey baa la yidhi meeshaasoo bahgooye ah oo biyo lahayn oo baad lahayn oo wehel lahayn oo asbaabta bini aadamku ku noolaadaan aynan jirin oo la yidhaha magaceega waadi catash togi haraadka oo safarka yaman markii ay shaam wax u doonanayaan habeen inay maraan maahina maalin ma mari karayn baa la yidhi halkaasaa ilaahay intuu nebi ibraahim ku amray haajaro iyo ilmaheega ismaaciil intuu qaado inuu halkaa dhigu maaragtaan halkaa uu kaga noqdo oo halka ku dhaafa iyaga waa ninka maqlay axaadiista markuu dhaadhiciyey biyo iyo baad wuxuu hayay uu dhaadhiciyey ee alla amroo lagu yidhi sii jeeso halkaad ka timid adigu iska teg haweeney qof jilicsan oo weliba ilmo yar oo naaska nuugayana wadata intay haweeneydaasi gurmadiya u baahan tahay gargaar adoo ragga annakoo raggaa meelaha noocaasa ku noolaan karin oo ka cabsoonayna walaakiin ilaahay casa wajalla wuxuu ogaa gabadhaasi tacalluqa ilaahay ay la leedahay ibraahim bay ka daba hadashay ku tidhi halkaa inaadna dhigta aniga ilmahaygood nagaga noqoto ma amar ilaahay xaggiisa kaaga yimid baa markaasuu ku yidhi haa wa fii riwaayatin fahaza ra'sahu madaxu weliba ruxay baa la yidhi markaa bay tihi idan laa yudayicana ilaahayna dayici maayo iska socod bay ku tidhi halkaa maanta dadka adduunka joogoo dhan ay jecel yihiin inay tagaan weliba maalmahan intan fasaxyada lagu jiro iskuullada nin baan maanta la hadlayno wareysanayno wuxuu ihi xaramkii magaaladii maka iyo magaaladii madiine meel la istaagama la buu yidhi wixii dad muslimiin ilaahay adduunka dhaqaalo uu siiyey ayaa ubadadoodii la soo aaday maaragtaane xarameynkii awal meelo kalea la tagayey laakiin ilaahay jalla wacalaa baryahan dambe waxaad moodaa ilaahay ummadda il naxariis leh inuu ku soo eego bibarakati dacwadda iyo saxwadda islaamiga ee socota awgeed ilaahay quluubtii maanta xarameynku u soo jeediyey buqcadda sidaa u barakaysan haweenay sabirkeedii iyo kalsoonideedii rabbigeed ay ku kalsoonayd iyo tacaawunkii ninkeega ay la gashay ile ninkeegu diin buu u socday nebi ibraahim nebiyaduna waxay ma'muuriin ku yihiin inay risaaladda ummadda ay gaadhsiiyaane ay ku tidhi haddii marba amar ilaahay adiga aad ku socoto annakana ilaahay baa nugu filana iska soco bay ku tihi na dayici maaye nebigeenna moxamed calayhi salaatu wasalaam u kaalay ciddii u horreysay nebi maxamed rumaysay waa khadiija radia allaahu canha ciddii u horreysay ee diinta islaamka dhaqaalo ku bixisay waa ummuna khadiija radia allaahu canha ciddii ugu horreysay ee ilaahay jalla wacalaa uu soo salaamay waa ummuna khadiija radia allaahu canha ciddii ugu horreysay ee qasri janno ku yaalla loo bishaareeyo ummuna khadiija bay hayd undur khadiija waxay geeriyootay ayadoo salaad iyo soon iyo zake iyo xaj axkaamtaasi midna aynan soo degin oo keliya ay islaamnimadu ay tahay in qofku islaamnimada kolkuu islaamo
ودقاليه دينتا كبحيو وددك كلنا ودينتا إلهي قارسيو مركاسا بريغي دنبه دولة إسلام كو بلارتي أيا مكة ونبي وليبا فتح مكة مركو نبي فرت عليه الصلاة والسلام أيو رسول كانوا عليه الصلاة والسلام إسلام هويني وقبودي بمركا نبي مقالة مكة كرات سدي إسلام تبو مركا أوي مدي والله فريستي نبي والله كفتمي والله قصلي وشيكيي مركا عائشة رضي الله عنها مركو نبي حلقا كسوكعي أيا كتر يا رسول الله هوين إذن عاد أنت أو وقت الله جوكتي دقدن قبودي أدو شيكيني سيد توما يحيد مركا أبو نبي كل وخديجة صاحبة ديد بوكيري وأروس كيجي أنا جي خديجة أي وحكا أوجيد مركا سي عائشة مسيرته وحيتري ونبي الله مال والبخديجة باتكو هذا الهيساية ميان الضمر كلاب أدون كان لقوا أبورن إلا خديجة مويانه مركا أبو نبي كل خديجة يا عائشة خديجة كهر بوكير كهر حلقة تلقاء بينيين يدا الرميسي حلقة تلقاء عنقبتين تيقو قبتين يدا دقالها يقو بحسي أولادنا إلهي جل وعلا يدا أيو يقسيه برسولك يلي خديجة كهر بو نبي كويري عائشة تلقى مالنتي بينيين ومكة مركي لجوجي دينتو غريب كأي حيد أيضا يهر رميسي بو نبي كويري داد هرتي يدا الرميسي تلقى قريشة مركي لادين محمد عنقبتين هلقو قبتو عدي رقالها يقول بحسي اي قرب جوكشتي يدا اي حيد أولادنا إلهي جل وعلا أيضا يقسيه برسول كويري عائشة وحيتنا مركان أركي نبي عليه الصلاة والسلام ومالنت آذو حناقي أيان عبسدو الله فهيق أيان عبسدي محايا لي عرض النبي محمد إلهي بالله عرونا يا رالي قلت النبي محمد للرالي قلينا إلهي برالي لنقونا يا مركا بيتر يا رسول الله ما أنت كدم بيس خديجة دم بهذا القادم ماي إلهي هدب ما أنت دم دافي ويدي وانقل دمه مركا أبو نبي كويري أدقو خديجة إلهي دم داف ويدي أنا مركز أنا ديك إلهي دم داف قوي دينية هل كاسر دمركو أي دين تسلام كتاجناين إنك واحد إسقال إسكدجا صدق وحب دين تقوم قبل كرين والله لنا أول بوان كأجن السيرة ده هي تاريخ القرآن كا دين تإسلام كهوينك وحي أصوا قبتين وحلا قياس كرمها نيف لما نبي محمد نيف مقا ورعين إلا وحو أورنجري خديجة دمركي أي صاحبة هايان هلبك أوجية مركز عائشة رضي الله عنها مالين كله انت اسحجين كري ويدي بيكوتر النبي الله مال والب خديجة باتكو هذا الهيساية واسدة ميانا دمر كلام أدون كان لقوا أبورين مركز النبي يقول إني رزقت حبها يا عائشة خديجة وسيم موتا إن جعل هذا جعيل كذا إلهي بيقول رزاقي برسولك يري وارون النبي محمد عليه الصلاة والسلام مركا خديجة دمتي خديجة النبي يقول عندنا لما قول سنة كل جد بقبي وأمريكا خديجة كجيريوتي وحنا النبي يقول راح بدن يلنا أيو غيره الدنبو يش النبي يقول عايشة وجعلها لكن خديجة يا عاش الاسم بربر دقين